bismillaahi raxmaani raxiim kulan haboon daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo waliba Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan hadii baraali uu ka noqdo waxa qayb ka noqonaya xagee ayay maraysaa xaalka Itoobiya iyo waliba Tigray oo u muuqata waqtigan bilow dagaal oo cusboonaanaya saameynta Itoobiya waqtigan waxa lagu warinayaa in ciidamada Itoobiya ay isku sii fidinayaan dhulka Tigrayda maxay tahay Tigrayda fariinta adag ay u dirtay ciidamada Itoobiya si ay ugu fogaadaan waxa halkaas ka socda waxa sidoo kale qubanaheena aad ku daawan doontaan dibadbaxyo kale oo ka dhacay dalkaasi Australia kadib talaabo adag oo ay qaadeen booliiska taasi oo mudaharaadyada ka dhanka ahaa booqashadooda Heroes saameyn intee leeg ayaa ka dhalatay haddaba booliisku maxay ahayd dhibaatada ay halkaasi dad ugu geysteen qubanaheena ayaan ku qaadaal dhigi doonaa waxa sidoo kale barnaamijkeena qubanaha caalamka iyo Soomaaliya aan ku qaadaal dhigi doonaa magaalada Muqdisho waxa si weyn u soo gaaraya wafuud hordhac u ah maamulada Puntland iyo waliba Jubbaland haddaba dawladda Soomaaliya fariin ay horey ugu digtay ayaa mar kale u muuqda in wali hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland aysan marnaba si ugu harin haddaba waa maxay qubanaheena ayaan ku qaadaal dhigi doonaa tirada ciidamada dawladda ogolaatay ma sax bay ku yimaadeen mise waa la soo kordhiyay qubanaheena ayaad ku daawan doontaan waxa sidoo kale barnaamijkeena qubanahan ku qaadaal dhigi doonaa dawladda Soomaaliya iyo waliba sidoo kale Masar oo heshiis cusub gaaray haddaba diyaarada noocay ah ayaa Soomaaliya loogu talagalay waqtigan in loogu deeqo maxay ahaayeen Soomaaliya si dagaalka ka dhankee kooxda shabaab miyay kula dagaalami doontaa qubanaheena ayaan ku qaadaal dhigi doonaa xaaladda bariga dhexe oo mar kale u muuqato iyana markaasi in saansaan dagaal si weyn ugu socoto Iran way ka digaysaa talaabada ay qaadayso Mareykankana waxa uu bilaabay xulufaysi cusub iyo waliba saameynteeda leh iyada oo Iran ay wado dhaqdhaqaaqyo military oo ku aadan sidii ay markaasi isaga diyaarin lahayd weerar kasta ugu yimaada taasi oo u muuqata waqtigan in Iran loo fasiranayo in dagaal ay diyaaray u tahay maxay tahay talaabada xigta ay qaadi doonaan wadamada reer galbeedka iyo waliba Yurub oo waliba iyaguna si xoogan ugu mashquulsan diyaar garowga Iran xilli wada hadallo ay halkaasi kula haayeen Abu Dhabi fashil u muuqday inuu ku soo dhamaaday qodobadaasi waliba wixii kale inagu soo kordhayaan ku qaadaal dhigi doonaa qubanaha wararka xaqiiqda caalamka iyo Soomaaliya markuu ugu horeyso waxaan ka dalbanayaa channelkeena Shariif Show in aad ku soo biirto oo aad ka mid noqoto saaxiibadeena sida joogtada ah wararkeena iyo waliba xaqiiqda halkan ugu la socda mahadsanidin banaanbaxyo kale ayaa ka dhacay dalkaasi Australia kadib markii booliisku xoog ay ugu dhaqmeen banaanbaxyada ka dhanka ah booqashada madaxweynaha Israel Isaac Herzog ee kooxda Palestine Action Group Stance ayaana markaasi taageerayaasheeda ugu baaqday in talaadada galabta ay isugu yimaadaan si markaasi loogu banaanbaxo ama loogu muujiyo gacan ka hadalka booliiska halkaasi ay ka geysteen isla markaana looga dalbo in xilka gebi ahaanba laga qaado dawladda iyo waliba sidoo kale booliiska kadib markii ay sheegeen in israsaaseyn iyo waliba rabshad leh ay ku sameeyeen dibadbaxayaasha nabadgelyada ay ku doonayeen rabshadaha ayaana markaasi ka dhacay galabnimadii Isniintii bartamaha state sida ay sheegeen in tirada dibadbaxayaasha ah ay markaasi gaarayeen 500,000 oo dad ah iyo waliba ka qaybgalayaasha banaanbaxa ayaana sheegay in booliisku ay markaasi ku buufiyeen walxaha indhaha ka ilmeysay ama basbaaska waxaana sidoo kale ay sheegeen in 27 qof la xiray 10 kalena markaasi lagu eedeeyay in falkaasi iyo waliba jirdil loogu geystay halkaasi 7 qof ayaa la warinayaa in ay ku geeriyootay kadib xilli halkaasi israsaaseynta ay ka dhacday wahagaag markana Itoobiya xagee ayay wax u maraydaa waqtigan la jooga waa maxay dagaalada sokeeye ee mar kale ka soo cusboonaanaya dalkaasi Itoobiya TPLF ayaa sheegtay in ciidamada federaalka Itoobiya ay ku sii siqayaan qaybo kamid ah Tigray iyadoona markaasi ka digtay in arintani halis ay ku tahay dib u soo cusboonaashaha colaadaha hubeysan iyo waliba sidoo kale jabhadaha oo u muuqata waqtigan in si weyn ay ugu fogayihiin jabhada xoreynta shacabka Tigray ee TPLF loo yaqaano ayaana bayaan soo saartay shalay in ku sheegtay in ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ee Itoobiya ay markaasi
horumar ka sameynayaan qaybo ka mid ah ee dalkaasi Tigray taasi oo ayna ku tilmaantay mid khatar ku ah ama nabadgelyada saameynteeda ay ku yeelan karto haddii aynan dib ugu laabanin isku dayada kala duwan ee ciidamada Ethiopia ay kala imaanayaan وهاجاج مركنا دولة فدرالك الصومالية يقولي بس دو كله معارض كذا أيها أمقذا وقت كان إن حيصده لبضو ذي نعبة يدو سامين أيلان كرتو يدو صوماليا مانتا عالم كأردن إندها أوكوهايو أيها هدنا وحا موقتا heshiisyo kala duwan oo ay horay u gaareen dawladda iyo waliba sidoo kale xubnaha madasha mucaaradka ayaa u muuqata waqtigan in dhaqan galkeedu ama saansaanteedu si weyn ay ugu bilaabatay maanta waxaa magaalada Muqdisho soo gaarayay wafdi hordhaac u ah maamulada Puntland iyo waliba Jubbaland oo qayb ka noqonaya madasha wada hadalka gogasha ee nabadda iyo waliba isku keenida xasiloonida ku maldahan maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya laakiin wali ma jirto talaabo kale oo la qaaday iyadoo baaqa gogasha u muuqdo waqtigan in raggii iyo saaxiibadii ka qayb gali lahaa ay si weyn u soo gaarayaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya tirada ciidamada maamulada Puntland iyo Jubbaland ay soo dirsadeen ayaa u muuqata mar kale in ay hadal ay keeni doonto iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya gebi ahaan markeeda hore ka mamnuucday laakiin waqtigan ay si adag ay ugu adkaysteen in aan sinna isugu haleyn karin ama aysan kalsooni aysan ku qabin dawladda federaalka ee Soomaaliya mana jirto talaabo kale oo ilaa haatan ay qaadeen laakiin waxaa soo gaaraya magaalada Muqdisho in ay markaasi ka qabsoomi doonto kulanka labada dhinac ee u dhaxeeya taasi oo saameynteeda la filan karo maalmaha soo socda in natiijo weyn ay wax ku oolahan ay ka soo bixi doonto haddaba bilowga kulanka iyo waliba dhamaadkiisa qubanayaasheena kaleena soo aadan ayaan kugu qaadal dhigi doonaa waad ku mahadsantahay ilaa dhamaadkan hadaad ila soo gaartay mar kale ayaan ka dalbanayaa janalkayga Shariif Show in aad ku soo biirto aad ka mid noqoto kumanaan kun inaan gaarno adiga kaliya ayaa inaga harsan mahadsanidin